deegaankan aan maanta joogno idin muuqda waa deegaankii Jiroole aan hadda hawsha ugu dambeysay aan ka wadnay baadiyihii waaye aan sameynay wadadaas idin muuqatay ugu dambeysay oo aanu ku wadnay hab ah dalkaab oo dhalinyaro ururka la magac baxday barnaamijka dalkaab aan wadnay hawshina waa socotaa inta bacdigeed waxaan u baahanahay in ka oosin lahayn dhammaan shacabweynaha ama dadka ku nool deegaankani ruuxantii in laga qayb qaato horumarka aan wadno nalaguna taageero ruuxantii waxaan anu kulay qaban karno oo kaligeey maaha isxaqaan baan hadda hawlahan ku wadnaa barnaamijyada aan soo ku wadnay barnaamijyo aad waaweyn bay ahaayeen hadday ahayd barnaamij dhirta deegaanka cagaarintiisa iyo deegaanka wadayntiisa runtiina facility aan ku shaqeynay facility aad noogu yar booha marka waxaan codsanaynaa dhammaan oo dadka deegaanka ku takhasusa in ay qurba joog iyo dal joog dhabanta inay ka qayb qaataan si deegaanka loo hawleyn lahaa hadda xeebta dheer aanu saaka ku tahay dhirtani waa xeeb aan ugu talagalnay in mustaqbalka deegaanku noqdo degmad dalxiiseed oo loo soo dalxiiso oo dhammaan dadku u yimaadaan oo ay ka magacawnaato degmooyinka hoostaga degmada Kismaayo hoostaga dhammaantood inay ka sheegnaato sidaan waxaan ku gaadhaynaa isku duubni iyo iska wax u qabso anagu inta karaankayaga waa la nimid deegaanka leeyahay waxaan kaloo ku sii darin lahayn intaas insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo runtiina waxaan ilaaweyn markasta u mahadnaqan Ilaahay oo mahaddan maanta aan ku nimid dhaliyay nabadan hadii nabad aan jirin maalin nimaadeen baan filayaa waxaan kaloo u soconay oo aan ku daraya aan hilmaamay markii hore aan ka bilaabahay inaanu nabadii la qaatay si boorino oo nimcada ay nabadu leedahay taas ka mid tahay maanta in deegaankii dib u celisay dib loo bilaabo meeshan aan joogno waa deegaanka Jiroole saad ogsoontihiin deegaanka Jiroole waa deegaan xeebeed Ilaahay ku maneystay dhul daaqsin iyo badiba taasina waxa loo baahan yahay inay ka faa'iideystaan dadka ku nasab sheegto deegaanka Jiroole khaas ahaan dadka dhulbaanta waxa loo baahan yahay inay dalka soo degaan oo deegaanka soo camiraan deegaanka wuxuu u baahan yahay in laga faa'iideysto xoolo lagu dhaqdo lagana shaqeysto badda khayraadka badda waxa dul saaran iyo barrigi marna badda ka shaqeysanaysa malaay baad kala soo baxaysaa
faa'iidaysanaysaa xoolaad ku dhaqanaysaa geela ku dhaqmayo lo'da ariga xataa digaaga haddii meel loo habeeyo xataa meel digaaga lagu xanaaneeyo waa meel ay xataa ku xanaanaysamayso waa dhul uusan diideen dhinac waliba haddii loo dhaqaajiyo dhinacu diidayo ma lahan badda iyo beriga laakiin taasi waxay u baahan tahay in dad ka faa'iidaysto deegaankaas la helo oo si dhab ee ka tahay inay dalka u degaan ee ka faa'iidaystaan dad magaaladii Kismaayo ahayd waanu ka nimi magaaladii reer caasimadda ahayd Jiroole insha Allah waanu badannahay waxaan nahay ilaa 500 qof isla markaasina waxaan magaalada uga baxnay si nabada haddana magaalada si galaynaa insha Allah inta magaalada nooga dhiman waxaan ku rajoonayaa si nabada ku tagno insha Allah maxaa leedahay هذا اسكسي والله waxaan soo galnay dalxiis aad u fiican waxaan ku dalxiis tagnay aan aadnay deegaanka xeebta ku yaalo oo la yiraahdo Jiroole aad baan soo dalxiisnay ma sha Allah nabad baan ku tagnay nabadna ku soo noqonay alxamdulillah haddana waxaan dhex mareynaa deegaanka waxaan ka sii bixinaa Suwaan Salaamo waxaan ku jeednaa deegaanka magaalada Kismaayo ayaan ku soconaa ma sha Allah ilaahay nabadda noo ziyaadiyo alxamdulillah خير بايدين الجنيا Jorge.